الله سويناها بيوم يا جماعة، بيوم و4 ساعات. والله سويناها ما شاء الله تبارك الرحمن. wuu ooyay oo ilmada xijisan waayay kadib markii uu gaaray hadafkii uu ka lahaa muuqaal toos ah oo uu ku ururinayay lacagta burucaada. haddaba sheekadani ayaa warbaahinta carabta iyo tan duniduba ay saacadihii u dambeeyay aad u qaadaadhigayeen. wana wiil da'yar oo lagu magacaabo xasan suleymaan amaba ku caanbaxay oo loogu yeedho abu fulaan, una dhashay dalka kuwait oo youtubera. xasan suleymaan amaba abu fulaan waxa indhaha warbaahinta iyo tambaraha bulshadu ay ku kulantaba ku soo jiitay tabin toosa amaba waxa loo yaqaan live oo uu ka soo galay janalkiisa khaaska ah, kadibna uu 28 saacadood gudahood ku soo xareeyay lacag kor u dhaafaysa 1 milyan oo dollarka Mareykanka ah, taasi oo uu ku taageerayo kumanaan qoys oo qaxootiya. wiilkani ayaa muuqaalka tooska ee uu ka soo galay janalkiisa ku sheegay inuu samaynayo si uu lacag caawimo ama sadaqada oo uu ugu talagalay in uu ku caawiyo qaxootiga reer Suuriya oo tiradoodu dhan tahay 5720 qoys oo masaakiin kuna dhaqan waqooyiga Suuriya. muuqaalkan ayaa sidoo kale waxa uu ugu dabaaldegayay kadib markii dadka ku xidhan ay gaadheen 20 milyan. abu fulaan ayaa si uu caawimadani u gaarsiiyay cid uu ugu talagalay waxa uu heshiis la galay hay'adda qaramada midoobay ee UNHCR. abu fulaan ayaa bartiisa Twitter-ka muuqaalkani kadib waxa uu ku soo qoray alxamdulillah, mar walba iyo weligeedba waad mahadsantihiin goob kasta oo aad joogtaan, cid kasta oo i taageertay amaba baaqayga ka qayb qaadatay amaba lacag soo gaarsiisay amaba xataa duco ila garab istaagtay. waxaana uu intaasi raaciyay alxamdulillah wayn gaadhnay ujeedadeennii. waxaana uu intaasi ku daray in markii hore qorshihiisu ahaa in lacagtani uu ururiyo muddo 1 toddobaad ah, isagoo rabay in aanu kursigiisa ka kicin ilaa lacagtaasi ay soo wada gaadho. waxaana uu sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay in 1 maalin iyo 4 saacadood ay ku soo xarooto lacagtaasi, isagoo xataa seexday sida uu sheegay kursiga dushiisa oo aanu meelna uga kicin. sidoo kale dadka soo gaarsiiyay lacagtan sadaqada ah abu fulaan ayaa kor u dhaafayay 23288 ruux oo ku kala sugan wadamada dunida. dad badan oo caan ah oo isugu jira culimo iyo weliba bulshada qaybaheeda kala duwan, shabakadaha wararka, warbaahinta muuqaalka ee dunida iyo dad kale oo fara badan ayaa ku taageeray abu fulaan tallaabada bini'aadamnimo ee uu sameeyay. xasan suleymaan wiilkani caanka ayaa ka soo jeeda qoys danyar oo ku dhaqan dalka Kuwait sanadii 2016. isaga iyo wiil iyo gabadh ay walaalayihiin ayaa dhameeyay dugsiga sare sanadkii 2017. walaalihii ayaa waxa ay galeen jaamacadda si ay hore uga sii wataan waxbarashadooda, balse isaga waalidkiisa ayaa u sheegay inaanay u awoodin lacagtii uu ku dhigan lahaa amaba ku geli lahaa jaamacadda, iyagoo u sheegay inuu iska sugo intay wax isbedelayaan. waxaana uu noqday youtuber, hadda waa ninka dunida caanka ka. waxaana uu sameeyay tabarucaad badan, waxa uu dhisay masaajid, ceelal biyood oo uu ku caawiyay dad masaakiina, waxaana uu bixiyay gawaadhi. sidoo kale waxa uu indhaha u qalay kumanaan ruux oo ka dhibaataysnaa dhinaca aragga. sidoo kale xasan suleymaan ama abu fulaan ayaa waxa uu ballan qaaday inuu caawimo gaarsiin doono kumanaan qaxoonti oo kale oo ku dhaqan wadamada dunida, kuwaasi oo uu ka xusay Yemen, Masar, Suuriya iyo wadamo kale. haddaba su'aasha isweydiinta leh ayaa daawada waxa ay tahay tallaabadani wanaagsan ee uu qaaday wiilkan aadka u da'da yar ee youtuberka ee reer Kuwait ma noqon doontaa mid ay kaga daydaan kumanaanka youtuberada Soomaalida ee marka ay gaadhaan 100,000 amaba wax ka sareeya sameeya xafladaha miisiga iyo heesaha ay waqtiga iskaga lumiyaan.